munaasabad lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa qalab ciyaareed ay ugu deeqday hay'adda FCA Finland halkaas lagu guddoonsiiyay ciyaartoyga gobolka Sanaag. munaasabadan ay ka soo qayb galeen barisaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay, mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee heer gobol, mas'uuliyiinta kale ee laamaha dawladda, hay'adda FCA Finland, ciyaartoy ka kala yimid degmooyinka Ceelafweyn, Badhan, Dhahar, Laasqore iyo degmada Maydh iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu wararkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda dhalinta ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka Sanaag Maxamed Dhagayare. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo koobkii degmooyinka gobolka Sanaag uu inooga bilaabmi doono magaalada Ceerigaabo. halkan waxaa nala jooga hay'adda FCA oo nagu wareejisay qalab dhammaystiran oo ka kooban 6 degmo ee gobolka Sanaag. degmooyinka ka qayb galaya markii hore degmooyinka waxay haayeen 6 degmo ee hore ee eedaha مع الأسف وحنو كحنا هاي دقمة جرأتك ويكسر حاضر ويدي كوبكي تانا وحنو كبدل النيد مركي أنو قيميني دقموين كي لبيه طبقة هاي قبل كسناك دقمة مايد مركي وحن شعلها هاي اللي سهنيو مسؤول كسر هاي دفسي فنلندا ويسقون هالك سكان لا وهذا الذي سكمل ذا أنا ما أنت وحنو كوريتشين إن محقق هاي قدوميها قولك iyo maxaliyada wasaaradda sportiga ciyaaraha gobolka qalabkii agabkii ciyaarta tartanka ay kaga qayb qaadanayaan dhalinyaradu oo ay kamid yihiin dhammaan direyskii 6 tiim ee ka qayb qaadanaya kubadihii oo shakubadooda maxaan ku yiraahdaa kabihii koobkii ciyaarta ee lagu kala qaadi lahaa biladihii dhammaan agabkaas oo dhan ayaan maanta ku wareejinay gudoomiyaha waxaanu kaloo qayb weyn ka qaadan doonaa intay joogaan qarashaadka insha Allah ku bixi doona tiimamka soo qayb galay waxayaguna munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay isduwaha nabadeynta gobolada bariga gobolka Sanaag Xuseen Karsay iyo xubno kale kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay ciyaartooyinka ka kala socday degmooyinka gobolka ee si ay u wada ciyaaraan koobka nabadda gobolka Sanaag isugu yimi magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo. koobkan inoo yaala waa koobkii degmooyinka loo qabanayay waana koobkii nabadda gobolka aan ugu magac daray waxay noo bilaabi doonaa sida la sheegay insha Allah maanta ugu dambeyntiina barisaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo munaasabadan soo gabagabeeyay ayaa wuxuu yiri waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda FCA oo qalabka sportiga nagu kaalmaysay naguna kuna caawisay gobolka aad baan ugu mahadcelinayaa horta koobkii waa koobkii nabadda gobolka waxaa la idinka doonayaa ciyaar wanaag baa horta marka hore idinka rabaa ma aha sidii burco inaad tiraahdo haddii kubaddu ku dhaafto ninkii ku dhaafin ninkii loo gooyo iyo ka laga badiyo iyo ka laga xarfad badiyaaba de waxa way ciyaarta ka mid tahay inaad aad u haniyeysaan ciddii badisa idinka oo aan niyad jabaynin oo odhanaynin waa caynkan aad iyo aad waxaan doonayaa in aad uga qayb qaadataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada idinku waxaad tihiin sporti had iyo jeer sportigu waxa uu caan ku yahay inuu nadiif ka yahay waxyaabaha khariban waxaana xusid mudan in halkaasi laga sheegay in isla gelinka dambe ee maanta garoonka kubadda Daalo Stadium ee magaalada Ceerigaabo uu ka bilaabmi doono ciyaaraha tartanka koobka nabadda degmooyinka gobolka Sanaag iyagoo degmooyinkuna u wada ciyaari doona kooxaha A, B iyo C oo ah degmooyinka Ceerigaabo, Badhan iyo Maydh oo iyadu bedeshay kaalintii degmada Garadag oo tahli kari weyday inay ciyaarahan ka soo qayb gasho iyo kooxaha D, E iyo F oo ah Dhahar, Laasqore iyo Ceelafweyn waxaana ciyaarta ugu horeysa ay dhex mari doontaa maanta degmooyinka Ceerigaabo iyo Badhan. waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, shabakadda caalamiga Odweyne News, magaalada Ceerigaabo.